gabaygaas waxaa ku xigay gabay kale oo isagana wacdi ahaa ama diini ah. Waa gabay waana ah. Waa gabay ka hadlahaya qofka haddii dhalaalka adduunka uu sii joogo maalmo inuusan ku raagaynin oo maalin maalmaha ka mid ah adduunka laga wadi doono ayna fogeyn maalinta uu adduunka ka tegi doono inaan adduunyada la israacinin oo adduunyada la isasiinin buuna gabay ku hadlahaya xagga aakhirana loo bato. Waa gabay marka diini ah. gabaygan maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninaan saaxiib ahayn oo cabdi la odhan jiray oo ahaa marka nin aad iyo aad u xoog badnaa quwadiisu ay sarreysay ayaan ku halqabsanayay isagaasaana marka hore gabayga kula hadlahayay waana ku waaninhayo waxaan lahaa war adduunyadan xooggan iyo maanta bidhaantan kaa muuqata ha isku hadlaynin berri baad arki doontaa adiga oo duq ah oo tallaabada iyo socodku marka isla waayahaya marka intaad yar tahay cibaadada xaggeeda u bado. gabaygaas marka gabayga waanada ah weeyaan. gabaygan wuxuu ku bilaabanhayaa togogadan ku xoogaysatiyo turuqan weynaaday ee tiirigaas wada noqdiyo cududan toosnaatay ee totooma iyo taabashaba tabi waxyeelaynin si kastood u tuhuntoo awood aad tamadisaaba sidii awr tabaadiyana aad tawla noqotaaba tamashlayso suuqoo xarago dhan ula tiicdaaba tabaalada adduunyada mar uun bay ku taabaniye oo aad tawaawici sidii ruux tarsaasiniye oo taha kaa baxahayiyo telelku dheeraane tallaabadiya ay ka ahaan socodku teelteele tabaryarina owgeed tukubi oo tarbiicsaniye waqtigii nimuu taabtayoo tamani ooyaayay yaa yidhi markaan taag lahaa tala i weydaartay hadda oo tashigii taam noqdayna tabardaray haysa waa hoga tusaalayn tixdan soo tabinayaaye kumana taraasiina waan kuu tircinayaaye ta'wiilkiiyo ujeeddada haddaad toos u garanayso tooshkana uu kuu qaban halkan ula tanaagooni aan tacliiq yar kuu raaciye qaada taladayda. toobiyihii saxaabadu martiyo tubihii khayraadka taabiciintii qaadeen iyagoon tawrad uga leexan toorihii unbay culammadii noogu taliyeene wayna noo tilmaameen xaqii tuhunku waa ceebe ilaahay ha tabantaabiyee taqiya weeyaane inaan tiih isgelinaana waa tabihii shayddaane tafaraaruq naga jira midnibaa lagu tisqaadaaye waa hoga tusaalayn tixdan soo tabinayaaye kumana taraarsiina waan kuu tircinayaaye ta'wiilkiiyo ujeeddada haddaad toos u garanayso tooshkuna uu kuu qaban halkan ula tanaagooni aan tacliiq yar kuu raaciye qaado taladayda. tawxiidka badi oo haddayn inaad takbiirayso tuhunna yuusan kaa gelin nebiga oo sunnada taabac tuko oo salaadaha mid qura yaysan kaa tegine hadduu tacabku barakoobo oo tooso muruqaagu tulid bixisayaa iyo cabdow tiro ka dhiibtaaba taabageli sekada taa unbaa lagu tanaadaaye waa tiir dhaxaad soonka ee tacaddi ha u geysan tadbiirtii adduunyada haddii lagugu taageero tow xaj kabadhe toobiyahana qaad waa tub khayr badane waa hoga tusaalayn tixdan soo tabinayaaye kumana taraarsiina waan kuu tircinayaaye ta'wiilkiiyo ujeeddada haddaad toos u garanayso tooshkuna uu kuu qaban halkan ula tanaagooni aan tacliiq yar kuu raaciye qaado taladayda. ajirku yuusan kaa tabinine khayrka tabantaabi edebtana ku toosnow si aad taarig u ahaanin adigoo rasuulkii u tegin allahumma salli wasallam wabaarik calaa nabiyina mawlana maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasallim adigoo rasuulkii u tegin towha soo odhane misna adigoon kala teedinoo mida ku taamaynin saaxiibadiisii tamadi taas unbaa furane taftoof uu ibliis duufsaday iyo taranjin mooyaane iimaankiisnimuu toosan yahay waa tixigeliyaaye u talqiima kaad ku aragtaan kala takoorkooda. saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin kala takoorahayo midna jecel midna diidan oo kale anigu hebel baan si gaara u jeclahay hebelna waan u cadhoonhayaa oo waan necbahay kaad ku aragtaan waa mid uu ibliis duufsaday waayo innaga waxaa layna amray saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaynu jeclaano dhammaantoodna cuduul bay ahaayeen radiallahu canhum ajmaciin. allah ka wada raali noqdo mid aan khaas u jeclaanayno iyo mid aan ka tegayno iyo mid aan u cadhoonayno ma jirte dhammaantood allah ka wada raali noqdaan leenahay dad naga wada sharaf badnaa oo naga wada ciziyi karaama badnaa